المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا. السلام عليكم. kusoo dhawow qisada maanta. Ruqayya waa gabar 16 sano jir ah, waa xaafidul Qur'aan. Waxay xifdisay 29 juz oo kamid ah 30 juz oo Qur'aanka Kariimka ah. Waxa uu dhiman hal juz oo kaliya, wali waxa ay wadaa dadaalkiisii iyo waliba dhameystirkiisii. Waxay ku jiraan bisha barakaysan ee Ramadaan. Waxay ahayd qof soomay maalmaha ugu badan ee bishaas barakaysan ee Ramadaan. Maalin maalmaha kamid ah ayaa Ruqayya markii ay ka soo laabatay xaruntii madrasada ahayd oo ay ku baranaysay xifdinta Qur'aanka oo ay soo gaartay gurigeeda, waxay u gudubtay qolka ay ku sameyn jirtay daraasaadka iyo muraajacada. Mar alaala markii ay u gudubtay qolkii ay ku sameynaysay daraasada Qur'aanka ayaa waxaa la gaaray xilligii afurka salaada Maghrib. Aabbihi ayaa waxa uu dareemay in Ruqayya aysan qayb ka ahayn, ayna ka maqan tahay goobta lagu afurayo. Waxa uu markiiba dareemay in ay ku daashay muraajacadii iyo daraasayntii maanta oo dhan ay ku sameynaysay gudaha qolka, sidaas daraaddeedna ay laga yaabo inay iska seexatay ama hurdo ay la tagtay. Aabbihii dhalay Ruqayya ayaa soo baxay, waxa uu soo aaday dhankii iyo qolkii ay ku jirtay Ruqayya, isagoo saas daraaddeeda u soo jihaystay qolkaasi. Markii uu soo gaaray qolka, wuu u soo gargaraacay albaabka Ruqayya. Wax ka fura ayuu waayay ama la hadlo, sidaas daraaddeeda waxa uu niyeystay inay cibaado ku jirto ama salaad. Xoogaha ayuu u sugay cabaar, kabacdi ayuu ku soo laabtay, sidoo kale wax u jawaaba ayuu waayay. Durbaba waxaa galay dareen caafimaad oo ku aadan dhanka gabadhiisa Ruqayya. Waxa uu go'aan ku qaatay inuu jabiyo albaabka si uu u ogaado xaaladda caafimaad ee gabadhiisa. Mar allaala markii go'aankaasi uu fulay, isla markaana uu jabiyay albaabkii qolka, uu gudaha soo galay Ruqayya aabaheeda. Waxay indhihiisu qabteen Ruqayya oo sujuudsan ama sujuud ku jirta. Durbaba qalbigiisa waxaa ka dhacay in gabadha weli cibaado ay ku jirto, sidaa daraaddeedna aysan dhamaysanin. Hase yeeshee xoogaha cabaar ah markii meesha uu taagnaa ayaa waxa uu dareemay in gabadhii Ruqayya ahayd ay ku dheeraatay ama ay ku daahday sujuudda. saas daraaddeed ayaa waxaa galay dareen kale. saas daraaddeed ayuu isku dayay inuu la hadlo isagoo taagan goobtiisa, isagoo u sheegay in la gaaray waqtigii afurka ama salaada Maghrib, iyadoo maalintaasina soonayd. saas daraaddeed ayaa wax u jawaaba ayuu waayay. Waxa uu soo dhaqaaqay oo go'aan uu ku gaaray inuu si toos ah ula hadlo gabadha uuna u yimaado. Waa uu soo gaaray mar allaala markuu doonayay gabadhoo sujuudsan inuu garabka ka qabto ayay dhanka kale u dhacday. Waa uu naxay Ruqayya aabaheeda. Waxa uu dareemay inay jirto xaalad caafimaad. Si degdeg ah ayuu ugu cararay deegaanka ama dhanka dhakhtarka ee ugu dhow deegaanka. Mar allaala markuu u soo yeeray dhakhtarkii oo ay soo gaareen guriga, gaar ahaan qolkii ay ku jirtay Ruqayya, ayaa dhakhtarkii waxa uu ku wargeliyay Ruqayya aabaheeda in ay geeriyootay. Ruqayya aabaheeda ayaa arrintii aad uga naxay, maxaa yeelay isaga iyo qoyska iyo dhammaan Ruqayyaba dadaalka ay wadeen waxay ahayd in halka juz u haray Ruqayya ay si wanaagsan u dhamaystaan, si ay heerkii ay doonayeen ama qalinjibintii ay rajeynayaan ay u gaaraan. Hase yeeshee ma noqonin. Aad ayuu uga naxay Ruqayya aabaheeda geerida gabadhiisa soo gaartay, isagoo ku tilmaamay gabadhiisa inay ahayd tii abid ugu wanaagsaneed ee carruurtiisa ka mid ah, islamarkaana uu arko qofkii kaliya abidka ugu dadaalka badnaa inay ahayd, uguna akhlaaqda wanaagsanaa. Ruqayya aabaheeda ayaa mar kale gadaal ka sabray, guud ahaan markii uu niyadda gashtay in gabadhiisa ay ku geeriyootay camal wanaagsan, islamarkaasina ay ku jirtay dhaqan wanaagsan, iyadoo weliba aad u dadaalaysay islamarkaana waday xifdinta Qur'aanka Kariimka ah. Meeshii ayuu ku sabray, islamarkaana Ilaahay ayuu uga baryay inuu janno iyo naxariis siiyo gabadhiisa. Haddaba qof walba waxaad isku daydaa in waqtigaaga ugu badan aad geliso dhanka cibaadada iyo waajibaadka Alle uuna faray. Barnaamijkeena maanta inta ayaan kusoo afmeeraynaa. Barnaamijku waxay noo soo diyaariyay anigoo ah Mucaawiye. Halka aad kala socotaan waa janalka Halsheeg. Tan iyo kulankeena xiga, sida iyo nabadgelyo. المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا. السلام عليكم. kusoo dhawow qisada maanta. Ruqayya waa gabar 16 sano jir ah, waa xaafidul Qur'aan. Waxay xifdisay 29 juz oo kamid ah 30 juz oo Qur'aanka